asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib yaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada janalkeena Hogan 24 Media waanigoo Cabdulle Macalin Maalto bishii Oktoobar 22keedii 1996 ayay ciidamadii Soomaaliya ay khilaafeen dowladii rayidka ahayd ee dalka ka jirtay toddobaad kadib markii magaalada Laascaanood lagu dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke. haddaba intaan u guda galin barnaamijkeenan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh gambalaalkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub kuna soo biir boggeena Facebook aan ku leenahay adigoo la garanaya mahadsanid 15 Oktoobar ciidamada ayaa afgembiga sameeyay kadib isku diyaarin ka socotay magaalada caasimadda ee Muqdisho sidii loo buuxin lahaa xilkii uu ka baxay madaxweyne Cabdirashiid Allah u naxariistay. waxaana idaacadda raadiyo Muqdisho laga baahiyay cod lagu sheegay in talada dalka uu la wareegay hoggaanka ciidanka. kowdii bishii November 1996 ayaa waxaa la cadeeyay in General Maxamed Siyaad Barre uu yahay hogaamiyaha golaha kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood. waxaana la dejiyay siyaasadii golaha kacaanka uu kula macaamili lahaa caalamka. dowladuna waxay qaaday jid cusub oo siyaasadeed. waxayna ku dhawaaqday in Soomaaliya ay tahay hadda hanti wadaag cilmi ku dhisan. waxayna dowladda ujeedadeeda ugu horeysa ahayd in la dhiso dhaqaale caafimaad qaba oo ku saleysan kartida midaysan ee dadkeeda. waxaana la qareemeeyay ganacsiga iyo warshadihii gaarka loo lahaa iyadoo sidoo kale wax soo saarka farshaxan dhaqameedkii Soomaalida caanka ku ahayd aysan ka maqnayn. ugu horreynna waxaa la hormariyay sameynta alwaaxa, birta, foolka maroodiga iyo farsamada maqaarka oo waxyaalo badan laga sameyn jiray. golihii kacaanka ayaa qorsheeyay iskaashi buuxa oo qalabaysan kaas oo xirfadaha farshaxanka kor loogu qaadayo laguna horumarinayo dhaqaalaha dalka. tan iyo wixii ka dambeeyay kacaankii hanti wadaagga badeecadaha daruuriga ah ee waddanka ayaa la ballaariyay. waxa ay dowladdu xoogga saartay gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku tiilay warshadii dharka iyo suufka ee Balcad iyadoo lagu qalabeeyay qalab casri ah. ujeedadu bilowgu waxay ahayd in dalka laga dhigo mid isku filan isla markaana laga xirto dharka suufka ah ee lagu farsameeyay gudaha dalka. oo hadafka laga lahaa uu ahaa in waddanka isku filnaado oo waliba helo wax soo saar sanadle ah. waxayna dowladii kacaanku qorsheeyday in sanadkii ay soo saarto 10 milyan oo yaardi oo dhar ah. waxayna sahashay in shaqadii warshadu ay sii ballaarato. dowladuna qorsheyso inay xoogga saarto dhoofinta dharka. dhanka kale waddanka waxa uu leeyahay dhul beereed aad u baaxad weyn kuna wanaagsan abuurista miraha kala duwan. waxayna dowladdu xoojisay farsamada gacanta ka sokow wax soo saarka qudaarta si loo diyaariyo dhaqaale wax kool ah faa'iidana u ah ummadda. waxaa la dejiyay qorshayaal lagu ballaarinayo dhoofinta qudaarta. waxayna dowladda sidoo kale xoogga saartay gobolka Shabeellada Hoose oo markaa ahaa ilaha dhaqaale ee waddanka. waxaana laga dhoofin jiray kheyraadka ka soo go'o gobolkaas dekedda iyo aeroboortka magaalada Muqdisho. ganacsiga ugu weyn ee waddankeena waxa uu ahaa dhoofinta xoolaha nool. sidoo kale waxaa la dhoofin jiray hilibka gasaacadaysan oo caafimaadkiisa laga taxadaray. waxaana loo diyaariyay warshado waaweyn oo ku yaalay magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo. waxaana sanadkii laga dhoofin jiray 300 milyan oo hilibka gasaacadaysan ah halka tiro kale oo aad u badan oo hilibka looda ah loo suuq geyn jiray Masar iyo dalalka kale ee bariga dhexe. wuxuu alla weynay noogu deeqay nimco midii ugu weyneed haddii ay noqoto bad, webi iyo dhul beereed iyadoo Soomaaliya lagu tiriyo wadamada tirada yar ee hodanka ku ah dhul xeebeedka kuwaasoo laga heli karo kheyraad badan oo laga sameyn karo dhaqaale aad u fara badan. dowladii kacaanka Soomaaliya iyadoo taa ka fikiraysa ayay waxay hormarisay warshada kalluunka ee Laasqori oo loogu talagalay inay ugu yaraan soo saarto kalluunka gasaacadaysan 5,000 oo tan sanadkii si loo dhoofiyo. kacaankii ka hor Soomaaliya baahiyaha gudaha ee dalka waxaa lagala kulmay gebi ahaanba qarash aad qaali u ah oo dibadda laga keenayay badeecadaha uu dalka isticmaalo. ilaa 1969 waxay dowladdu waddo dheer u martay hagaajinta xaaladda warshadaha dalka si ay u soo saaraan wax soo saar ku filan oo ay ku daboolaan baahiyaha gaarka ah ee dalka iyo beecgeynta kheyraadka dalka ee loo iibgeynayay dalalka kale si looga helo dhaqaale waddanka dhaqaalihiisa kobciya.
waxayna dowladda sii xoojisay kobcintii dhaqaalaha iyadoo dib u dardargelisay warshadda sokorta ee jowhar oo ahayd warshad soo saarta sokorta waxayna ku taallay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe. warshaddan waxaa la sameeyey sannadii 1962 waxa ayna ahayd warshadda ugu weyn ee bariga Afrika. awoodna waxay u lahayd inay samayso 3,000 oo geentaal oo qasabka sokorta laga sameeyo. waxaa kale oo ay samayn jirtay sifaynta sokorta. waxay lahayd rug shaybaar kiimika ah oo lagu baari jiray qasabka inta ay howsha wado. waxa ayna ku shaqayn jirtay gaas dabiici ah oo laga soo saari jiray haraaga walxaha qasabka iyo miraha. waxaana ka maqneen wax soo saarkii dalka sigaarka iyo taraqa ama kibriidka oo ay soo saari jirtay warshadii taraqa iyo sigaarka kuna tiilay magaalada Muqdisho taa oo maalinkii soo saari jirtay in ka badan 1 milyan oo sigaar ah. isla warshaddan ayaa sidoo kale soo saari jirtay taraqa ama kibriidka laga sameeyo alwaaxa la jarjaray kaa oo laga keeni jiray degmada Jilib ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale warshadii baastada ay ku tiilay magaalada Muqdisho ayaa loogu talagalay inay sameyso baastada nooca loo yaqaano pasta spaghetti iyo macaroni rigatoni si looga maarmo baastadii dalka uga imaan jirtay waddanka Talyaaniga. waxaa kale oo la hormariyay warshadii caanaha ee ku tiilay magaalada Muqdisho, warshadii biibsiga ee ku tiilay magaalada Hargeysa, warshadii sibirka ama shamiitada ee ku tiilay magaalada Berbera iyo dhammaan warshadihii dalka oo idil si waddanku wax soo saarkiisa u isticmaalo. waxaa maanta halkaa inoogu eg barnaamijkeennii aan ku eegaynay wax soo saarkii hore ee waddankeenna Soomaaliya ka oo Allah ku manaystay bad, webi iyo dhul qurux badan aadna u baaxad weyn laguna beeran karo miraha kala duwan iyadoo waddankeena lagu tiriyo wadamada tirada yar ee hodanka ku ah wax soo saarka kala duwan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshayna la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena YouTube-ka gabalaalkana furo si aad u heshid muuqaalada kan xiga. waa inoo muhiim fikirkiina inaad nala wadaagtaan. mahadsanidin.